aan indhahayga kusoo arka on job experience ah iyo aayadahaas aan sheegi doonana waa cayn al-yaqiin ku aragnay sidii waxay bima kaana ta'awul ilayhi waxay aayaddu ay sheegaysay oo aan aragnay maaha aayad aan iska soo qaatay waxyaalo aan aragna waaye aniga awalan waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo dhalinyarada ha ka cabsanina horniyo nagu waqtigan socon waa maxay sax waqti oo khatar badan jiil waxaa kusoo aadin jiilka cusub fitan far badan jiro laakiin xagga risqiga oo sii badana jiil kastaba jiilka ka dambeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mal faqru akhsha calaykum walakin akhsha calaykum an tubsada calaykum addunya kama bislat man kaana qablakum waxaan inkaga baqi maayo yani mataqaan risqi badan imaan doona laakiin inaad ku fidnoodaan ka baqa qofka sallallahu alayhi wasallam waa yandiqu can alhawa as-sadiq al-masduq waa kaas marka bishaaradii waa haysataan waxaan gudbaa marka 6dii qodob oo aan sheegay oo niri bal aan kitaabka ilaahay ka raadino waxa aan baadi goobayno tan koowaad hada waa in la yimaadaa taqwa iyo iimaan ilaahay ka baqid iyo iimaan ina aaminsan tahay ku tala saaratay tawakkul kullu waa in la helo labadaas shart haddii la helo arsaaqda waa la helaa بهذا النص إلهي سبحانه وتعالى عليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هديت أذكر أي آمين لها إلهي سبحانه وتعالى قرى دتك هدي تغنى الإيمان هايين آمدها من وحأفر لهم بركات من السماء والأرض بركات واللي برزق كذا ما عبير بركات دي بركات معناه ذو حواية رزقي ينفع رزقي ينفع رزقي وكو أنفعه الدنيا آخرة لكن مركي أو هاي متقانا مال كل جيس حد يكرت الدنيا أو لب فوجيست أو ستريس يبقى تبضن مشكلة كمان حتى ما دلبا مال أيوة بليون سيستا مركا هالكاس بلنقاب أي كوش يغن أيداس إلهي سبحانه وتعالى كو فهمني إن رزقك إلهي سبحانه وتعالى هذا الله وضع الشرط هذا الإيمان والتقوى رزق مجهد إيمان حلوة waxaan kaloo rabaa inaan runtii xuso in mataqaanaa aayaddan haddan akhriyey barakaad waa meesha aan ka qaadanay magaca shirkadii barakaad shirkadda barakaad telecommunication barakaad bank barakaad xawaala magaca waxaan ka qaadanay kitaabka halkaasaan ka qaadanay tafaa'ulan iyo intaba mataqaanaa ciyaanka marka isaga waa kaasa waa xagga meesha waxaan ka qaadanay xitaa waa isagii waa sheeko dheer dabcan magaca barakaad markaan u bixin marka albarakaana la dhihi jiray marka taqwada aad iyo aad waxaan ugu celinaa markale ku celinaa arrinta taqwada muhiim jiddan 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 waxdaas ilaahay dartiis uga tagtid ilaahay wax kugu bedelaa yani ilaahay dartiis wax uga tagtid ilaahay kugu bedelaa aniga waxa waaye shaahidun cala asr waxaan idiin sheegaa hadda ka hor waxaan ka shaqayn jiray bangi kabacdi saxwadii marka alxamdulillah soo gaartay waxaan ogaaday bangigan in wahay mataqaana rabo yahay inaan iskaga tagan goostay waan iskaga tegey markaan iskaga tegey alxamdulillah rabbil caalamiin dadka waxaa jira oo asxaabteeda ka shaqayn jiray 30 sano ka bacdi ay ka shaqaynayeen anigana waa ka tegey fatx barakaat min as-samaa wal ardi ifur ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب marka ilaahay subxaanahu watacaala haddaa taqwadiisa la timaad ilaahay subxaanahu watacaala risq oo ku siinaa oo barakaysan dadku waa haysaa lacagta meel kasta taagtiin oo barakaysan bointigaas waxay ahayd aaminu wataqow bointiga labaad oo qodobka labaad waxa waaye ilaahay bari yaa risqiga haya ilaahay subxana wataala isaga haya aan barino isaga hala baryo khaasatan waqtiga oo ijaabatu dacwa ay taagan tahay waqtigaas ilaahay hala baryo mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala isagaa caddeeye haddii la baryo inuu siinayo ilahay subxana watacaala إلهي وحده سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وأدعو إليه حتى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وحأركي كدون في القرآن وإذا يسألونك عن كذا قل رسولك عليه السلام إن لي هذا لكن أيضا قل حتى لمدهم وإذا سألك عبادي عني قل لمدهم فإني قريب إليك الجواب دعوة الداعي وأجيب مركا دعوة ذاس وإلهي لبريو عواي وحوين رنتي عن هذا إلا الله عن كأبكي waxyaalo far badan oo soo maray shirqoollo xasad mashaakilo far badan oo kala gedisan gacmaha waqtiyaalkaa ayaa ilaahay u taagay ilaahay subxaana watacaala waa naga rafacay alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka ducada aad iyo aad loogu dadaalo
tan saddexaad waxa waaye guurso dhalinyarada waxaan usoo jeedi lahaa inay guursadaan guurso waxaa dhici karta inaad tirahdaan war sheekhu guurso iska leex maxaan ku guursanaa arsaaqa u baahana lacag ma hayno ardaan nahay haddaa qarashka waalidiinta naga bixiyaan ku mushkilaysana maxaa xaggee ka guursanaynaa waa iska riyoonaan u maleyn ma riyoonayo ilaahay subxaana watacaala arsaaq waa helaysaa asagaa ballan qaaday asagaa ballan qaaday fi qawlihi subxaana watacaala waankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihim ullah min fadli waa ballan qaad hadday fuqara yihiin anaa ghaniyna yiri ilahi subxaana watacaala ballantiisana kama baxo ogtihiin ilahay ballantiisa kama baxo anagaa siinayno ilah yiri marka guurka logiga ku jira muxuu yahay in muxuu ahay guurka xataa logic ahaan ayaan fahmi karnaa sidaas oo kaleeto aayad kaleeto ilahi wuxuu ku leeyahay daabad kastoo dhulka joogta anaa arsaaqdeeda siiya wamaa min daabatin fi lardi ila cala risqaha insaan jinni xasharaat xayawaanaat kullu ay daaba oo dhulkaas kusoo biirta anaa bixinayo ilahi subxana wataala leeyahay waa biil loo qor qof haddii adiga dukaan aad saaranta oo bishii mishaar ka qaatid muxuu kalaa yimid asna mishaarkiisa loo qoraa marka taas waxaan ka fahmaynaa qofku markuu guursado asaga hal risqiyo lahay ninka dhalinyarada gabadhuu guursaday ayda risqigeedana waa loo dhiibaa carruuraa timid waa loogu daraa yani biil socdo waayo marka logically waa sidaas weliba waxaan leeyahay anigi su-aal as'al mujarab walaa tas'al tabiib mataqaanaa soo arkay runtii weliba ninkay u suurtoodo ha badiyo مثنى وثلاثة وربع يا أفرق ديو قبلها رالي هذا قبله ما جعله إني لو بديو جورك لكن أنا وأركادي هذا عندي وأركي منطقة مركز جورسي الحمد لله رزق وزيادة قدر متكلا وزيادة حرور كلاتي وزيادة متصدحات من أفرق مركز تبكر زيادة مركز اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب مركز كل إنسان سبحانه وبحيا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأنه كباريني سيدا aan u heli karno risqiga sidaan mataqaana fursad risqi looga helo waa helnay alxamdulilah rabbil caalamiin aayaadkii akrinayna iyo dikr alxakiim iyo rasuulka isna aqwaashiisa intaba marka waxaa soo hartay intaas ma ku filan tahay u fi samaa'i rizqikum barakaatin min as-samaa'i wal ardi ballanqaadkaas ma ku filan yahay waxa waaye sunanta waa inuu raacaa anaga daawish min waxa waaye ahlu sunna wal jamaa waxa waxa laga rabaa ina mataqana ilaahay tala saartid laakiin aqilha rasuulka isa soo sheegay aqilha thumma tawakkal dabar thumma kabaa tawakkal laakiin sidii waan iska daayay خلاص ilaahay ilaalinaya waa iska seexana rasuulka iigimaada samad allah asma soconay sunanta waa inaan raacnaa sunanta aan gudbaynaa marka macnaha amaliga ah qofku wuxuu qaban lahay noqdad afaraan ka dhignay waxa waaye tijaarada hadarta inay najaxdo oo aad galaysid tijaarada waxa waaye horta maalka dadka haaya bini'aadamka kale u dhiibay say dhexdooda dawladdan waaye kor ku yimaada laakiin dadka dhexdooda dadkaas si wartid arsaaqda uga heshid waxa u baahan tahay to make their life is easy ina waxa noloshooda u dhigaraysid oo waxay u baahan yihiin u keentid ma ha ahaato khadamaad ama ha ahaato mataqaana badeeco intaba adiga laga rabaa in uu keentay si ka fiican sidii ay u helayeen adigoo fiirinaysid oo waxyaab lagu kala hormaro waxa waaye si degdeg ah inaa wixii u keeni kartid service iyo khadamaadba service iyo mataqaana badeecaba quality-ga badeecadaada ama khadamada ha ahaadaane inuu sareeyo costigana oo hooseeyo saddexdaa shay hadda ka shaqaysid mataqaana you are in business aad iyo aad mataqaana shaqadaadu u toosaysaa hadda arrintaas la timaadid oo dadka noloshooda aad ka dhigtid easier waxa waaye mathalan dabakaayo ku taal meel oo looga baahan yahay wax haddaad heshid qabso haka yani iska kor iska dhigin أي فرصة كفايديسو ما فهمت ما هي كنت على استراتيجية إذا أفكرتي ماشان والله ماشان ده كفرتو ماشان دكان دبكاي وإيماني سوا وبيزنس واي أرنت مركا أو إن دتك
wuxuuda make people's life is easier waxa weeye case study aan soo qaadan lahay oo runtii annaga aan mataqaanaa soo maray wax oo aniga soo maray waxaan sheegay hadda kahor aniga inaan ka hadli doono practical lessons waxa aniga aan soo sameeyey waxaan usoo jooga markaan leeyahay wax aniga aan sameeyey waaye marka oo dadka make their people's life is easy arrintan ku magacaabay aan sameyno waa dadki si waxay u baahan yihiin supply grade shirkadda barkaad xawaal markaan furaynay sacuudi carabiya 80skii ayaan ka furnay marka hore xawaalada waxay ku socon jirtay dariiqa oo qadiima oo dad inta ganacsatada yimaadaan dadka lacag ka qaadaan badeeca gashtaan oo mataqaa sidaas kabacdi dadkii ku siiyaan bakhaarka lacag ka qaataan waxaa la nimid oo ilaahay noo yasiray inaan telex wax la yidhaahdo isticmaalno oo technology telex dadkaan ma yaqaanaan umala dhalinyaradan telexku wuxuu ka horreeyey faxka oo ka horreeyey waa isna suuqa ka baxay faxa ka fiicnaaday dhashu dhihi jiray marka telexkaasaan la nimid telexka marka mid waxay noqotay oo suurtagelin maalintii labaad dadku in lacagtooda helaan marka waxaan ka jawaabnay marka speed degdeg waxayna ku gaarsiina uga jawaabnay quality service ayaan ka jawaabnay kabacdi waxaa dhacday dowladdii markay burburtay dhibaataa dhacday telkiska waa naga istaagay communication wax aan rajeyn aan malaynayna nagu dhacay 2 bil ku dhawaadaan iska fadhinay oo dagaaladii intay magaalada ka socdeen iyo intii ninkii madaxweynaha meesha ka baxay dadkii ayaa yimaadeen war axmed nuur war halkeen war dadkii lacag inaad gaarsiisaan kaa rabnaa war saan u gaarsiiyaa mar kale ilaahay subxaana watacaala hadda waxaan ka hadlayna mataqaanaa waxyaalo oo camali ah oo aan ka hadlayna mar kale haddana saan hore usoo sheegnaba qur-aankii haddana ka helna xalkii qur-aan ka helna wax mushkilo ahayd lacagta haddaan kaa qaado seen u geeyaa qofkii seen u geeyaa qofkii meeluu jooga ma aqaani seen u geeya telefon waagii hore kaaraf la dhihi jiray male marka qur-aanka ayaan ka helna iyadana شعوبا وقبائل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كل كده على هذا قبيلة الأخرى هذه كلام كان العكس بس العكس كان يقدر هبل وفير هبل وكسي أرير هبل ليش كان سوق هذا العكس كان سوق هذا ود كان بس كي واسع شو على انتو بدنا تمام ولا مركا وعواي هدنا وحلنا نمت مشكلة جرتي أو أهاد أو أنا لكن هراء وحجر معها ayaa ilaahay xalkeedu noo sahlay ilaana waxaan barnay dadkii telefon lagu raajay finish wadanku telefon u lahaa telefonku waa go'ay xal oo ilaahay wuxuu noo sahlay marka oo qur-aankan aan ka helnay inaan dadkii saa ku gaarsiin lacagta aad iyo aad ugu farxeen dadku waa ooyin qaarkood say nagu soo hesheyn lahayn way aad iyo aad ooyin hore usoo soco haddana barakaad xawaalan ka hadla kabacdi qabiilkan wax lagu moodi karo aad ugu wax liito waayo raadintiisii mashaakilkii qofku aad u badan tahay waxaan technology ku noqon haddana intel communication abuurno shirkad communication abuurno ayaa haddana xal ka dhignay alxamdulilah rabbil caalamiin shirkad telecommunication abuurnay xalka waa fiicnaaday weliba waqti badan ay qaadatay oo wadanka markii hore taxamara xoog u degan Soomaalidu 1 country ahayd laakiin markii dhibka dhacay magaalooyinka dhammaan la kala aaday waxay noqotay magaalooyinka saan u gaarnaa radio rakaal la dhihi jiray radioalkaas aan dadkii wakiiladaha siinay kuwaasa marka mataqaanaa dadka loo tabi jiray hebel intaas magaaladana dee markaa telefon ma jirin sidii telefon la-aanta intay jirtay dad oo la yidhaha baafiyaal oo dadka raadiya ayaan qorno oo dadkii raadinaya qabiil ku raadinaya marka arrintii 3 jeer ayaa hadda misaal ayaan iin sheegnay oo maskaxda la yimid oo ilaahi subxaana watacaala dadkii baahida ay u qabeen shaygii xagga speedki iyo qualitygaba laga xaliyey 3 example ayaan uga baxa shan waxa waaye waxaan ku jirnaa weli allah see loo baadigoobaa qaybtii oo sunanta raac oo shaqo qabo taxarug sameey inaad adiga dad iska seexatid maaha iskama seexan kartid saan hore u sheegnay networking iyo tacaawun ayaa noqdaan u baxshay waxa waaye dadka baro hadda waxaad joogtaa wadamo kala gedisana joogtaa Soomaaliya joogtaa dadka baro barashada dadka qofkaan baro qofkaan mataqaanaa masaajidka ku tukanaysid dadka baro kaa waaweyn dadka isku factiin sidoo kale baro
dhaqan fiican yeelo dadka jecel khayrka la jecel ahaaw wanaag samay adiga wanaag samay wanaagaas aad samayso waxaad dhici karta deg inaad u heshid oo mataqaana waxyaalaha oo ilaahi subxana watacaala ani aan case study hadda usoo qaadan doono inaad wanaag samaysid oo dadka soo dhaweysid ayaa hadda aan case study waxaan usoo qaadan doonaa almarxuum xaashi weheliye maalin ninka xaashi weheliye maalin allah u naxariisto toddobaatanaadkii ayuu sacuudiga yimid ani toddobaatanaadkii waddankan sacuudigan ka shaqaynayay qaybtii dambe toddobaatanaadka waaye isaga markaas shaqo bilaabay ganacsi yaroo bilaabay markaas ayaan is aragnay war maxaa timid warni xawaalaan raadinaya dad inaan lacag ka qaato dadkan soomaalida bes ana baawur wataar soo bax baawurkiiaan marka ku wareejaa subaxdii oo kolley shaqaan jiraa laakiin baawurkiiaan ku wareejaa gurigaan geeya reerkaan geeya qolooyinkaan ugey qolooyinka ugey lacag ku aruursadaa liis oo mataqaana qaataa badeecadiisa gashtaa ou noqdaa kabacdi waxoogaa businesskiisi waa weynaada xaashi weliye allah u naxariisto wuxuu ahaa runtii markuu dhimanaya dadka oo businesska ugu weyn waddanka ayuu lahay isaga iyo nin kale shirka yihiin jamaludiin la yidhaahdo allah u naxariisto labaduba dhinteen marka kabacdi xataa badeecadii haddana uu yuroni badeecooyinkaas iisoo dira oo iisoo gadaa marka hore sacuudi wax laga gadi jiray kabacdi dawladda wax laga diri jiray tiyaan bilaab inaan la qabto kabacdi waa sideetamaadka markaasaan ka hadlaa kabacdi tadawrad dadkii kale ay barteen oo ganacsiid kale ay barteen oo raxmed nuurow mataqaana ninka xaashi weli aaminayso ninkaan maha warni badeecaas noo soo ayaan commission ka qaadi jiray sidaasaa marka ani laftkeyga ay dadkii ugu barteen marka anigana marka horeeto wafcalu lkhayra ninkaan mataqaana saaxiibka aad tihiin oo isku magaalana ceelburan ceelburkooda dhalnay mataqaana u khidmay marka ha hilmaamin ixsaanka aad iyo aad ujaw kaa ficdan aad iyo anfacad runtii arrintaas oo xaashi weliye ixsaankaas iyo wanaaggaas aan la sameeyey hal jazaa lixsaani ila lixsaan sidoo kaleeto hadda jaamacadaad dhigataan jaamacadkaad dhigataan school mateskiina mataqaana wanaag iyo isla xiriira hadda baaro dadkaa la shaqaynaya kuwa ragga wanaagsan dadka wanaagsan oo mataqaana akhlaaqda fiican la baro group brainstorming sameey fursado oo hadda waddanka aad joogtaan haddaad dabadaha joogtaan ka faa'iidayso maxaa halkan what's different halkan aan ka faa'idi karaa badeecooyin halkan oo xagga aan gee karo ma jiraa sanaacooyin oo si loo sameeyo small industry ma jiraa oo xagga aan gee karo hadda ka faa'iidaysta meesha joogtaan ka faa'iidaysta sidoo kaleeto ka faa'iidaysta munaasabo kasta oo aad mataqaan la isugu yimaado ha laga faa'iidaysta munaasabaha shirarka hal marka oo la isugu yimaado meelaha shirarka waaweyn oo kaleeto aroosyada wixii wanaag dadka baro mar kastaba qof ijtimaaciya noqo dadka baro shirarkaas oo kaleeto masalan oo networking ay dhahaan marka shir la qabto oo lectureska dhammaadaan xoogaa waxaa jira biriftaas dadkaa isku barto networking yidhahda biriftaas oo kaleeto aniga case example ayuu aad iyo anfaca jira nin inta meesha iska tago birifta shaqo madaxdu iska fadhiisanaya cidna bara maayo cidna la hadli maayo xoogaas tankow taaga may baro dadka case study waxaa barakaad bank markaan soomaaliya ka sameynay sagaashanaadkii qaybtoodii hore markaan ka sameynay waxaan isku daynay inaan la xiriirno bangiyaasha kaleeto ee mandaqada sida sacuudi carabiya oo kaleeto bangiyaasheeda waa noo suurtoobeysa bangi kastaba waa sakeen waxay raalli ahaado soomaaliya bangal raajirkaan la xiriirin ninka cilaaqaadka khaarijiya joogay waagaas raalli ahaado soomaaliya failed state ma fahamti failed state waaye markuu saas sameeyey waa iska dhaafnay sida localkiina isaga wadanay shiran ka qaybgal marka baxriina shirkii baxriin aan u qayb galay ayaan waqtiga networkinka ayaan iska salaaminay wareedii xagee timid kaarka aan siinay nina kaarka markaan siinay kaarka aan siinay waxaa ku yaal ninkan fulaan alraajixi macnaha waa familiga iska leh banku raajixi ninkaa ka tirsaya waa haddana title weyn ugu qoran oo nin madax waay bal waran si fiican markaa usii sheekaysanay soomaaliya uga warramay waddanka xataa telecommunication leeyahay oo fiican oo xataa sacuudiga aan ka horreyna xagga mobilada wixii maasha allah wallahi shaqo fiican qabateen maasha allah soomaaliya private ne waa private maasha allah si fiican ninka waa si fiican isu baranay markii dambe wuxuu yidhi aniguna diyaaradina warni waa in la soo xiriirnay nin kamida oo cilaaqaadka khaariji jooga ayaan la xiriirnay wuxuu yidhi soomaaliya mataqaana soomaal
وفي صومال في دولة ما في صومال ايش صومال خلاص وما له دماتو فيرستيدا ما خلاص لهذا مركز تكتب لهذا مركز صومالي يكون الله هذا نينكي علاقات الخارجية مركز الله ورهب المياه ها احمد علي من الصومال ها يا اهلا وسهلا الف مرحبا الصومال على رؤوسنا وحكي انت حرير كاس وانكفى اي وقت كاس كفى اي شركه اي وقت بكربر اللي احنا نقدر كوسو نيري وقام كو غبنغبينا نقدر ugu dambeysay waaye baadidoonka fursada ganacsi intaas markaa qabatay alxamdulilah rabbil caalamiin oo dadaashay oo mataqaana aayaadkii quraanka iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala rasaaqdi wixii dhan la sahlay waad heshay fikradii heshay waxaa harsan noqdada ugu dambayso ah waayahay fikradii iyo wax shaqaynayaan arkay oo hadda ka jawaabi kara baahida lacag u baahan aan ku maalgeliyo lacagta marka waa tan lixaad ayaan hadda insha Allah gudubnay lacagta runtii waxa ka sideen maalgelin ku helaa waxa ka muhiimsan inta hore shaqadii inta badan waa qabatay marka soo qabatay fikrad shaqayn karta marka alxamdulilah rabbil caalamiin Allah timid oo amali ah oo loo baahan yahay shaqadii inta ugu badneed waa qabtay idan aad ugu ka muhiimsan maalgelinta waa saalaan doontaa insha Allah saan soo arki doonaba waxaad ogtihiin caalamka international niman dhalinyaro ah computer bas wataa computerkii iyo softwareki waxaas isku rakibeen waxay keeneen fikrad shaqaynaysa oo dadkii u bandhigeen dadkii lacag ayay baxseen international waxaa kamid ah shirkaddan Google waxaa kamid ah Apple ninkii Steve Jobs oo runtii founder ka ahay they're billionaires fikrada bas ay yimaadeen dadkii lacagtii waa investigation lacagta marka lacag dadku waa la hayaa laakiin xagee la geeyaa mushkil taaganta haddaan la timaada marka fikradii waxa waaye lacag majiin iyo mutaqaana madaxina war adduunka ugu reernaa mutaqaddimiinta kan uu ka dawaa exam u soo qaatay laakiin aniga point of view waxa waaye Soomaaliya meeshaan joogay oo practically waxa uga arkay Islamic finance oo mutaqaana lagu finance gareeyo marka fikrad timaadid one example Baraka Telecom dabcan shirkad weyn waxaa runtii mawduuca meesha ah shirkadaha yarka iyo laakiin shirkadii weyn iyo mid yar see loo helaa fursad oo isla mid hiya waa isku mid markaan Baraka Telecommunication sameeyno loo baahnaa runtii xawaaladii dadka u baahdeen oo markaas shirkad yar bilaabo wadanka bilaabo laakiin qaali ayaa lagu gadaayay markaas $5 waxaas lagu galay per minute marka shirkadaas markaan sameeyno lacag ma ahayn anaga fikradeen hayna lacag badan ma ahayn laakiin waa qayb ahaan oo qayb qaadanay dadkii aan bandhignay marka fikradii boqolaal qofood ayaa mataqaana ku soo darsatay marka Baraka Telecommunication saasi ku sameeyay marka waxay ku sameeyay waxa la yiraahdo mudaaraba maxay tahay mudaaraba waxa waaye nin fikrad haya shaqadina yaqaan sida loo qabto iyo nin maal hayo oo isu tagay ayaa la yiraahdaa mudaaraba arrinta soo sheegayni marka arrinta mudaarabada waxyaalaha oo laga rabo waxa oo shardi ka ah ninka fikradda la yimid oo shaqada inuu socodsiiyo maalka in lagu sallimo marka taasa xoogaa yar ku adagtaa marka dadka oo culays ku imaan kara xaggeeda marka laakiin haddii qofka oo maalka lagu sallimaa akhlaaq iyo wanaag iyo salaax lagu yaqaano oo dad kale ay taskiyayaan waa helaya insha Allah waa la siinayaa marka waa ina ahaataa marka ma kaliya fikrad kaliya kuma filla waa ina qof wax la aamini karo tahay oo mataqaana daahiratan wa baatinatan daahirka hadii ka muuqdo sigaariya oo qaadcuna ma baqa darooga ay jinnu ku jira cid maal ku dhibanaysa male marka kale waxa waaye arsaaqda xag ay jirtaa aad ilaahi subhanahu wa ta'ala raali garin oo ku soco mataqaana dhaqanka islaamka fiican tabal ima wanaag business ka yarka kaystada idan aan ka keenin lahay oo lacag ahaan say ku heleen ayaa oo mudaarab ahaantaas oo lagu finance gareeyay shirkado yar oo hadda wadan ka shaqeeya waxaa kamid ah pharmacy Shifa la yiraahdo pharmacygaas Shifa oo hadda ka furan wadanka nimana waxay la tageen salaam magnimo dhaqaatiir oo pharmaceutical yaqaan cilmigaas
ay waxay ula tageen Salaam Bank. Salaam Bank arrintii waa daraasiyey, way tuseen war anaga wax kana ka shaqeey jida anaga dhaqan meelaha fiican laga helay karo koosti yaran ku heli karnaa wixii markay daraasaadku siiyeen, laakiin waxay yiraahdeen oo runtii daraasaadku ku jiray in return of investment oo sabadnayn return investment-gu aad u badnayn waqti badan ay qaadonto lacagtan laga soo laakiin social mataqaana problem oo ka jiray in socialkaas in xalliyo marka oo socialkaas wuxuu ahay mataqaana responsibility oo taagnaay markaas in waddanka daawo ay taalay aad u liidata mid dhacday mid la yiri sameey wadamada qaarkood geyne waa u sheegaysaa daawada rabtid waxaa laga dhimaa daawadii effective biyo iyo qashin lagu badina noocaas jirta marka alxamdulillah rabbil caalamiin bangigu aqbalay social responsibility ayuu runtii bangigu fiiriyey alxamdulillah rabbil caalamiin bacda sanaad ka bacdi waa shaqay wixii hadda aad iyo aad ay u leedahay branch badan dadka u bartaan inay daawo tayo leh ay wado aad u barteen waxaa kaleeto example kaleeto malabka saafi isagana sidoo kaleeto dhalinyaraha oo ayaa la yimaadeen fikraddaas oo malab ayaan sameynayeen oo saafi ah oo waxaan naqaanaa si baashan loo qabto malika ayaa jirta boqoradaasa la qabanaa adigu loan story iyaga ay khabiir ku yihiin ay soo barteen wadamadaas ka soo barteen malabka waddanka yaala badanaa waa ma fiicneen mid qasasan mid waxay wala qasqaso iyo mid oo markii lasoo gadaayo marka la miiraayo mataqaanaa nadaafad iyo ku jirin oo wixii ku jiraan almuhiim fikraddaas bangiga ayay u geeyeen malabkii fikradda Salaam Bank waa finance gareeyey malabkaas aad iyo aad u shaqeeyaa saaf aad yiraahdaa successful waqtiga maadaama ciriir yahay ma rabo inuu ku dheeraado kuwa kaleeto waxaa jira sidoo kaleeto madbacadda Som Print Icon Media labadaba Salaam Bank ayaa mudaarabo ila galeen waxaa kaloo jira caqdi kale oo caqdul muraabaxa la yiraahdo oo aad iyo aad loogu finance gareeyo waxyaalaha ugu badan oo muraabaxada marka waa ka dhib yar tahay waxa waaye ninka duu la yimaado mataqaan qofkii amaanaya dalab bangi u soo qoraya ama oo bangi u soo qoraya waxaan rabaa inaan gato masalan dhalinyaraha oo yimid waxaan rabaa transportation inaan galo 10 bajaaj aan rabaa in la gado bas 10 bajaaj waxay joogaan masalan 10,000 ama 20,000 joogaan bangiga wuxuu saaraa lacag 10 bajaaj waxaa bixinaysaa lagu leeyahay 23 kun ku darsanayna 4 sano ayaa installment lagu siinaysaa waxeen bas waa leeshinaysaa lagu siinaya ayadana waxa waaye waa caqdi aad u shaqeeyo guriga lagu dhiso baabuur lagu gato badeecooyin lagu keeno nin kale wuxuu furtay dukaan furatay dukaankii markaa furatay ma haysatid badeecada nimanka wholesalers ka uga soo qabatay sidoo kale bangiga ku finance gareyn kara oo ka soo qaadan kartaa lacag oo markaa iyadana waa muraabaxo oo ku lacag saaranaya badeecadu ku soo gado ayuu saaranaya lacag ayadana waa arrin jirta sidoo kaleeto waxa waaye haddii adiga masalan aad furatid dukaan meel istaraatiiji ka furatid dadka supplierska bangiga inaad u baahnaan ayaa dhici karta dadka supplierska oo badeecooyinkaas keena ayaa ku keenaya adiga waa bixinaya bas alxamdulillah rabbil caalamiin taasna waa dariiqo kaleeto oo mataqaanaa wax lagu heli karo almuhiim warkan soo sheegay waxaad ka fahmi kartaan inaysan muhiimadu ay tahay runtii fikradda iyo wax shaqeynaye lacagta la heli karo salli ala maxamed qaybta labaad aan gudbaynaa hadda waa kan baqa inaan mataqaanaa waqtiga aad uu ii dhaafaan kan baqa saan ii sheega in professional lecture may marka waa oday iska normal marka haddii aan dhaafo safra insha allah qaybta labaad aan u gudbaynaa hadda waxaan ka soo baxnay hadda qaybtii ahayd sidee fursad ganacsi loo helaa qaybta fursad ganacsiga waa la helay alxamdulillah lacagta waa la helay see loo baxnaaniyaa say noqotaa wax guuleysta u noqotaa arrintaas oo waara oo muddo socda say u noqotaa oo keena faa'iido iyo ribxi taas waa pointiga labaad aan gudbayno alal mustacaan baxnaaninta kulli waxa waaye waa sidee sustainable u noqotaa shaqadaas oo adkay saasaan u qaata waxay leedahay baxnaaninta soomaaliga ma garatay aniga markaan idiin mataqaanaa saan u sheegaba
hore ugu sheegay mataqaanaa waxaan mar kastaba wax ka fiirin doonaa practical waxaan soo arkay iyo ilaahay subxaana watacaala qur'aankiisa oo labadaba kitaabka ilahay subxana wuxuu kusoo degay iyo wixii indhahayga aan ku arkay ayaa halkan aan ku kulmi doonaa waa ogtihiin qofka ilaahay subxaana watacaala ku shukriya inuu u ballan qaaday inuu u ziyaadiyo waid ta'dan rabbukum lain shakartum laaziidannakum haddaa shukri la timaadid waa lagu ziyaadinaa marka shukri lema wixii waa bilowda shaqadii alxamdulillah businessku waa suu ka duba dhacday shukri lema waxbaa la helay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax ka bixi wixii ilahay ku siiyey shukriga macnaa alxamdulilah keliya maaha waxa waaye qowlan wa ficlan la timaado maalka wax ka bixi sadaqada ka bixi zakada ka bixi arrintaas aad iyo aadaan practical u arkay aniga runtii ma naqasa min maalun min sadaqatin practical aragna kullama sadaqa bixis khayr bixisid ilahay baa ku ziyaadinaa practical aan aragnay marka taas waa qodobka koowaad tan labaad qodobka labaad waxaan ka shaqaynay shaqada markaa bilowdo waa inaad mataqaanaa rabitaan ziyaado ah oo jiraa oo waxaan aad waqti badan siisaa aniga waxaan ii sheegaa inaan shaqay jiray fi bacd alaxyaan ama kasiir min awqaat 14 saac inaan shaqay jiray oo marka weliba task prioritizationkaadi waxaad mataqan inaad marka rabtid waxa aad ka shaqaynaysa taas macnaheedu ma ahan mar kastaba xaqii xuquuqdii kale oo lagu lahaa oo naftadaada iyo rabbigaa iyo reerkaada ma aha cabdi kulladii xaqan xaqo marka arrintaa waan ku magacaabnay الرغبة المشتعلة هذا meel ka akhriyey waxa waaye waxaan usoo qaatay macnaha inuu qofku rabo waxaan oo inuu ka biyi karo aad interest ugu yahay nin xakiimaha waxaa la warsaday sidaas oo dhalinyaro warsatay warnin adiga success storygaada bal noo sheeg sidii story markan waxaa ka ugu muhiimsan ko waxa waaye rabitaan ziyaada ah min ku jira idinka rabitaan ziyaada maxaa ka wadaa taale practical inuu tusaa baaldi biyo halkaan dhigay baaldi biyo dhalinyarada su-aal ayuu yidhi haye fiir maxaa ujeeda aniga geel malaxaad bal qoortuu ku dhegay oo ku riixay oo soo baxay ninkii dhalinyarada ahay uu ku celshay markii dambe neefta marku ceshto xoog u kala tuura war waa dishay maxaa kugu dhacay ma ku dilin adiga yidhi mogta tus practicalan ku tusaa waxa la yidhaahdo rabitaanka ziyaadada ah markii koowaad xoogaa effort yara bixisay waa kaa celshay waa kaa adkaaday markii dambe oo artay inaad khatar ku jirto efforti ugu weynaa sabixisay waxaa effort weyn energy insaanka waxa ku jira quwa kaamina energy badana ku jirto energygaas waa inaad soo saartaa waxaasaan ugu jeedaa nuqdada labaad waxaan u baxshay الرغبة المشتعلة tan saddexaad waxa waaye dadka mataqaana shaqada kula qabanayo keliga haddaa tahay insha allah waa balaarinay shaqada 2 3 4 5 u baahnaa doontaa dadkaa ka fiirso ilaahi subxaana wataala wuxuu leeyahay haddana mar kale qur'aankaan ka qaadanaynaa taladaas war yaa ii shaqeeya qur'aanka warso ilaahay warso ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin uu khayr badan qofaad wax u dirsatid dad aqoonna leh qawi oo aqoontii leh ammaanana leh waa big factories waaweyn aad u waaweyn oo aniga runtii markaan isku noqdo aad iyo aad aan idhaahdo waxa waa one of the success story intaan noolaa iyo shaqooyinka aan qabtay oo ilahi subxana wataala mataqaana noo sakhiray bointigan wax weyn ay ka ahayd dadka marmar dadaan la kulmaa oo axmed nur madi ahaa orinkaadaan nin kale nin weynaan ba ku malaynaynay oo maasha allah waxa qabatan iyo maskax badan baa tahay bismillah maasha allah soomaalida ma yaqaan ana hoos ka ihahda marmar marka waxaa idhahdaa marka niyo saa umoodeysaar anigu ma ahi waxaan dadaa qabta ani ma qabanin aniga ilahi wuxuu ii saaray tan ina khayra man istajarta alqawiyu alamin dad oo smarta oo iskax leh oo aqoon leh oo ammaano leh ayaa isu keena dadka waxaan sameeya ujeedaan aniga maaha marka arrintaas nuqdadaas nuqdo aad iyo aad u muhiima waaye mataqaana aad ina ugu dadaashaan dadka aad shaqadaada u dhiibaysid aad iyo aad wax weyn taas waa nasane adiga haddaa u dhiibto dad fiican wax nuqdada afraad waxaan u baxshay tan oo kaleeto weel hoos duleela lacag waxaa tii sales waxbaa geli servicea gelaya ama badeeca gele alxamdulilah lacag kusoo gelaysa waa helaysaa baashi laakiin waa lacagtii faa'iida imaamayso liannahu wax xisaabin ma jirto meeshii auditin ma jiro budgetin ma jiro waa iska socotaa
daas ka socota weel doola hoos marka adigoo inaa mataqaana runtii cilmi u leedahay cilmigan xisaabaadka ilaahi subxaana watacaala yuusuf wuxuu yiri markii loo dhiibay alayhi salaam اجعلني على خزانة إني حفيظ عليم على الغرب هنا تاي شغلة متقن أي مدة كأديك سنة أنتم بينيين تنشرات وحواي وآد أيضا رتي مهمة ذات قرش قيناية حد رمان إن الشغلة ليهين سيقدر يصير شغلين ليهين مش عارف ده مدرن سنة حدا لكن فائدة سنة اللي هروح كسيسي سيلس كده على كوميشن بالكستلي بيوح كسيسي حضري ما شغلة إنه ليه يعني أنا لجي أشياء قفكي خير هذه ما فائدة تقدر الظلمات ده تقدر تمس عندهم أرنت أنا خير رجع أشياء ذكر ولي بأرن وإيمان وإلى رسولك عليه الصلاة والسلام ليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه أنا فائدة تشاجع أشياء وكل سعودي نكان كل شقينا عشان وقلوا ما فهمت أنا أرنتي وحالة ستوري عن صومر إيهاد ذاتك أساسا كسمي وحي عن قيب سناري كوميشن كي هلا قيب سنة وحي كيف أنا ماشى رفتي وحمان كسيني ذاتكي مركا ساعة كسيني خلاص ذاتك وحين نغضين أونرز وحي ذات كلها نغضين أنا يسان قلت عدرا أي شغل قلت عدرين marka runtii aad ahayd waxyaalaha oo markii dambe waxaan iska dhaafan wax leeyahay salary mushaar ma jirtaan commission intaas ku leeyihiin waa kaasa waxa waaye waqtigan ka baqayo inuu igal marka insha Allah waxay haysan insha Allah sabra waa dhamaysan kartaa adeer hore u soco haye insha Allah waayo ma santiin qodobka lixaad adiga mataqaana lima taquluna ma la taf'alun adiga in laga arkaa dadka kula shaqeynaa iyo kastamrada service-kaada siinaysid waa inay wanaag ka arkaan ma fahamtay oo haybad ku yeelataa dadka kula shaqeeya marka koowaadba haddii dadkii kula shaqeynaya masalan dhexdoodii oo adiga lagugu xamanayo oo ninka mid nin kale kugu xamanayo waxa u ballan qaadaada u fulinaynin mataqaan dhamaac tahay waxa waaye ma soconayso oo weel hoos ka duleela ma ku soconayso waxa waaye sifaadka wanaagsan isticmaal hadda waxaan jeclaan lahaa inaan ka keeno example yar case study aniga aan sameeyey dhammaacnimada intaan duway markaan nimid sagaashanaadkii 96 minus 95 mataqaanaa ayaa nin mataqaana ay maalin raggii ii yimaadeen oo xafiis goorda xafiiska imid markaa galabtii markaan joognaa xogaa briefing isiiyeen shaqada macabla warrama maanta waxaa qabsantay maanta $10,000 hal transaction ka helnay $10,000 hal transaction ka hesheen haa see hesheen walahi nin 200,000 xawilinaya oo u baahnaay degdeg Mombasa ka soo xawilinaya 200 degdeg u baahnaay commissionkeena ka qaadnay 200,000 5% dib u dhufto waxaa about 10,000 ها maanta alxamdulillah lacag ku dhufan marka waxaan ku iri war maxaa jira 5,000 maxuu qaateen minka u baahnaa 5 noo qaadna war lacagta waa weyn dadka lagama qaado lacag yarka waxa waaye lacag yarka 2% affect laga qaada ninkan qarada ku sameysteen ilaa u yeera ninkii waa loo yeeri waxaan iri lacagtan 2% lacag hadii weyn yihiin 2% lacag 5% waxa laga qaadaa lacag yarka marka lacagta $8,000 oo ku soo noqotay qabso marka waa kaasa ninka aad u farxay dadkii ila shaqeynayay aad u farxay oo ninka dhamaac maahan ma sha Allah ninkii aad ninkaas wuxuu noo noqon doonaa portfolio meel kasta oo nimanka barakaad waa dad wanaagsan asagii businesskiisa oo anagu noo soo wareejiyay iyo waxa uu dhawaay dadkii qaraabada ay dadka soo shaqeysanayeen marka sifaadka laga arko adiga taas waxaan u baxaa nuqdada 7 dadku markii aad heshid oo dadku isu yimaadaan waxaan u bixinay qaabil syndrome dadku markii isu yimaadaan oo dad smart isu keentay dadka oo maskaxda leh oo runtii la soo keen meesha shaydaan iyo naf ayaa jira waa kala gedisan yihiin dad waxaa jira bad inkastoo dadaashay oo dad laakiin still
waxa waaye waa qalad gefi kartaa ama waxba iska bedeli kara insaanka qulubta fi asbuuc raxmaan waaye dadka waxa waaye arrintan inaad dadkaada ka warraysid oo heshiisiisid dhexdooda heshiis degtid ninka matalan bad boyga oo qabiil oo kale ninka la yidhaahdo wuxuu sama ogola nin cusub hadduu shaqada soo galo oo fiican oo aqoon leh oo wax kordhi kara inuu riixoo rabaa marka waa inaad ka celisaa oo la socotaa marka fahamtay oo habiilka au hilisaa ninka habiilka waxa waaye nin doonaayo maslaxada caamka teedna waa helaa qaabiilka maxaan igu jira waa dad xagga riix qof kale mataqaana ninkan ku soco sulam ka dhigo informationka ixtikaar ku samee waxaas oo dhan uu sameynaa dadka noocaas oo kaleeta waa inaad la socotaa actually aniga sanawaadkayga dambe waxaan aad iyo aad intaas ugu mashquulsanahay inaan dadkaas mataqaana noocaas aan mataqaana waxaan ku anfac waxaan ilaahi subxana wataala noo sahlay dadkii markii wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin marka la hadashid oo mataqaana action waa laga qaada la yirahdo oo la hadlo oo ilaahi la tuso oo mataqaana mawcida xasana la siiyo dad kulli waa dad wanaagsan dadka waa hore ka qaadanayaan arrintaasna wax oo muhiim jiddan waaye dadka maskax badan daa isu keento waxa waaye waxay yidhahdaan qoori xero kuma heshiiso qoor ah xoog leh oo haddaa la isu keeno xerada ku heshiimayaan waa cid isku haysa waa in la helaa nuqdada oo sideedaad hal nuqdo bisa hartay insha allahu waxa waaye sahan joogtaa waxa waaye shaqadii aa kuu socota waa inaa sahan waxay dhaha soomaalidu markay guurayaan meelay degaan meel markay degaan gurigan waa inaan ka bedelnaa leeyahay xagee roob jiraa ninaa baxaya waa soo sahminayaa meesha roobku jiro ayuu helayaa meeshaas ayuu leeyahay loo soo raro cidda saasoo kale tan ka wadnaa in mataqaanaa sahan jiro waxay dhahaan waa research and development waxaa la yidhahdo waaye waa inay jirtaa oo shirkadaada aad mataqaanaa haddaad ka shaqaynaysid badaa'ic ka shaqaynaysid badeecooyinka aad keentid dibadda ka keentid ama gudaha aad ka keentid waa inaad raadsataa hal meel ha ku dheganaanine meel ka fiican ma jirtaa ka quality fiican ka price yar ma jirtaa raadso xagga technolojiyada sidoo kaleto waa inaad tadwiir ku samaysaa technolojiyadaas mar kastaba si dad aad ka jawaabtaa baahida dadka ay u baahan yihiin waa inaad ka jawaabtaa xagga technolojiya kaleto dad sameyn waaye arrintaas oo sahanka ka hadhay tartiibtooda calaa khayratin is yidhahdeen example waxaa usoo qaadan karnaa shirkad kodak la yidhaahdo oo aada u weyneedo mataqaana fotokomiyaalka iyo baalahaas o dhan samayn jirta iyo shirkadda nokia phones oo aad taqaanaano cirka maris labadaba maanta suuqa ma jiraan leannahu ma ayna samaynin sahan meesha loo socdo ma aysan ka taxadarinin waa iska socdeen nuqdada ugu dambeysa waxa waaye haquusan haddii dhibaatooyin la kulmi kartaa mashaakila imaan kara haquusan jabaa dhici kara oo khasaara dhici karta ka faa'iidayso jabkaada meeshan sha haddii lagaa qaniinay beri yaan lagaa qaniinin rasulka alay slam wuxuu leeyahay laa yuldagu almu'minu min juxrin maratayn laba jeer iyaan lagaa qaniinin meesha marka ka faa'iidayso wixii jab kugu dhaca inaad mataqaana aysan mar dambe kugu dhicin ka faa'iidayso nuqdadii ugu dambeyda ayaan gaarnay واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وصحبه وسلم وما تنتهي شاحنا علي معالي ادي ادبد حسنتهي إلهي سبحانه وتعالى حكا أبال مريو أقوانتا إيجابدا آد وفرح بدن إيران مسيسي دمان دقيسياشا نقو حران أو إلا حتى شن بقول أو قفت جاريا أو ستوس ودقيسيني برنامج وحان رجيني إني سيب وناكسن وغا فائديستين aqoon iyo khibradna ay ka heleen waxaan rajeynayaa in ay caawa laga bilaabo fikrado goobi doonaan oo ay raadsan doonaan tooliska la siiyana ay isticmaali doonaan kulleyta waxaan filayaa dhammaanteen waxaan haysanaa toosh waxaan noola ifiyey waddadii dadkii ku socon lahay oo waddadaas ku socon lahayna kulleyta annaga inaan noqono ayaan rajeynayaa insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan u gudagalaynaa qaybtii barnaamijka qayb kamid ah barnaamijka oo ah qaybta su'aalaha su'aalaha la soo weydiiyey ku saabsan casharkan aad bay u farbadnaayeen laakiin markii su'aalihii casharkii la akhriyey dadkii waxay aad bay u fahmeen casharka waxaana rajeynayaa su'aalo badan in aysan yani ku dhex jirin casharkaas oo si fiican uga wada faa'iidaystay
su-aasha koowaad ee aan weydiinayo soo jeediye ganacsada sheekh axmed nuur cali jimcaale oo lana soo weydiiyey waxa waaye haddii aad rabtid inaad ganacsi in badan jiraya abuurtid ama aad yeegleeshid waxaa lama huraan ah in aad la kulantid tartan haddii aad rabtid markaad abuurtid ganacsi waqti badan jiraya waxaa suuragala inaad la kulantid tartan inaad la kulantid tartankaas sidee uga guulaysan kartaa su-aashaas waa su-aasha koowaad ee nala soo weydiiyey waxaan rajaynayaa in uu ka jawaabo soo jeediyo hadduusan fahminna ama aysan si fiican codkayga uu soo gaarina waan kugu celinaya waa lagu tartamaa sidee tartankaas aad uga guulaysataa saas miya si fiican ha sidaas wey ya sidaas waay ha dabcan waxa waaye tartanka waxa waaye sidii aan horeba u sheegay waxaa lagu tartamaa speedka iyo qualityga iyo costiga ayaa lagu tartamaa saddexdaas haddii lagaaga adkaado de waa laga adkaanaaday haddaa saddexdaas adigu ka adkaatid waxa waaye adiga tartanka ku guulaysanaya bacda of course sunanta aan sheegno dhan inaad soo raadid iyo mataqaana tartanka marka hadday tahay badeeca hadday tahay iyo hadday khadamo tahaba deg speed iyo speedku inuu badan yahay oo wax ku gaarsiinaysid meeshaas ama khadmo ama badeeca ahaato costiguna inuu hooseeyo qualityguna sarreeyo saddexdaas shay ayaa lagu tartamaa ninkii saddexdaas shay ku guulaysta ayaa mataqaanaa ayaa tartan ku guulaysana waxaan filayaa su-aashaas si wanaagsan in uu u fahmay jawaabteeda qofkii na soo weydiiyey waxaan ku xiji doonaa su-aasha labaad oo oranaysa caqabadihii ugu waaweynaa ee ku soo mara intii aad ganacsiga ku jirtay maxay ahaayeen sideese cashir noocaasa ka baratay caqabadihii ugu waaweynaa ee la kulantay intii aad ku jirtay ganacsiga iyo cashirkii aad ka baratay wallahi caqabo badana jiray laakiin hadda caqabo badana soo maray runtii laakiin tii ugu weyneed waxay ahayd markii 7/11/2001kii shirkadii aan wadnay hal mar mataqan bisha November 11 ayaa shirkadii la xiray wax la xiriira arrimihii ka dhac Mareykanka axdaastii Mareykanka 9/11 ka dhacday qaraxyaalkii iyo dhibaatooyinka ka dhacday la xiriirtay ayaa mataqaanaa loo xiray shirkadeeni hal mar ayaa meelihii aan ka shaqeynay sida oo meesha wadnaha dhan uu noo yaalo waxay Dubai xafiisyadani la qabtay Dubai iyo kuwii Mareykanka aan ku lahayn marka hal mar nin oo milyaneer ahay hal mar deena looga shaqo ana mudiin noqday oo dadkii aan lacagaha u hayay oo dhibaatada ku dhacday oo Soomaalida ahaa oo bangiga barakaad dhigtay lacagtoodii ayaa noqotay wixii la qabsaday intii aniga aan lahaynba marka taas caqabadaas aad ugu weyn caqabad weyn ahayd oo businesskan aad dhibaato u geysatay laakiin cashar waxaan ka baranay ilaahay subxaana watacaala meesha waxaa u biciseen xikmadoon arrintaas waxaan uga fakarnay ilaahay subxaana watacaala in bacda inuu na fahamsiiyey xikmad marka xikmadaan uga dabaalanay awalan wa qabla kulli shay waxaan yidhi lacagta aan hayno oo waddanka ku haynay ha loo qaybsho dadka waa u qaybinay waxay u gaartaa maleynaa wagaas 25 meel xisaasa kabacdina waxaan yidhi dadkii aniga nagu leedihiin wixiina ma jirto meel kaleeto wixiina oo inka qabta maalin ku leenaha kuma lihidin Mareykanka iyo Mareykanka kuma anaga wacaysan daacad waxay noo gashay magaas barakaad u dhiibo bush ka qaado hormay anaga wax noo dhiibteen insha Allah anaga siinayna adigu xikma badan lagu tasarrufay ilaahay subhanahu wa ta'ala
dagaal badan oo galnay kabacdi sidii arrintaas isaga aan filaheen baryad ilaahi subxaana watacaala aan barinay adiga casharka laga faa'iidaysan karo waxa waaye runtii in mataqaana mar haddii wax kugu dhacaan aadna shoogin aad mataqaana ilaahi subxaana watacaala tala saaratid si xigmalena u tasaruftid waxaan u tasarufnay si xigma leh mataqaana ayaan u tasarufnay detail badanay u baahan taha laakiin xikma saad ku sheegteen si xigmana u tasarufnay oo hadda midda kamida kow ay kamid tahay wixii ahayna dadka inaan siino iyo waxyaalahaas oo kaleta marka alxamdulilah rabbilcaalamiin caqabadii taas inoogu weynay taas ahayd xikma u tasarufnay oo aad u dheeraad noqota haddii halkan lagu sharxi tago aad ba umahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa waxay leedahay waxaan haystaa idea ama fikir baan haystaa mana awoodo inaan fikraddaas maal gashto sidaan u doortaa bartinerkayga ama qof igu caawiya sidaan u doortaa oo i caawiya oo imaal geliya sidaan u doortaa waxaan u fahmay fikradan hayaa shaqaynaysa successful ayaan u arkaa aniga u arkaa saan u helaa bartiner oo capital haysta oo weli shirkooba waxaan rabo saas waan u fahmay si fiican sidaas wey runtii maanta waxaan ka hadlaynaba mawduuca oo ka hadlaynay saas uu ahay mar haddaa fikradda haysatid oo aad dhaqan geli kartid oo waxaas oo dhan aad haysatid waxaad haysataa fikradda mar haddaa haysid waxaad haysaa wixii ugu weynaa waa haysaa bartiner wuxuu noqon karaa qof ama cadad min annaas oo bandhigtid wuxuu noqon karaa investors kaleeto oo bunuugta oo si aan soo sheegnay ayay noqon karaan fikrado example inay siino oo aan meesha kusoo keenay mar haddaa fikradda haysid cabsi badan ha gelin waa helaysaa shuruudan waa sheegnay oo mataqaana adiga fikradda keliya maahane nin waa ina adiga sirkaada wax la aamini karo qof oo shaqo lagu qabo miisaan waa ina ahaataa intaas haddaa ahaatid waa helaysaa waa aniga soo sharaxnay ka cabsan kabitaalka waa helaysaa asaa ugu sahlan waxaan intaas baan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii su-aalaha barnaamijku wuxuu u sii siqayaa dhammaadkiisa barnaamijka inta aanan dhamayn ama aanan soo jeediyaha barnaamijka sheekh axmed cali jimcaale aanan yani uusan noo xirin barnaamijka talada uu naadiga siinaya uusan noo soo jeedin waxaan rabaa in aan ku celiyo gudoomiyaha naadiga akhriska qoraalka murtadoon si uu kelmad yar oo kooban oo mahadcelin ah kasoo qaybgalayaasha iyo soo jeediyahaba ula wadaago marka gudoomiyaha naadiga akhriska qoraalka murtadoon ayaan yeerayaa mudane isu dhowo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaan cilmi badan faa'iidnay marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ustaad sheekh axmed cali jimcaale kelmadii qiimaha badneed ee inoo soo jeediyey ahayd arrin waaqica taabanaysa aanan ahayn waxyaaba laga soo sheekeeyey ama buugaag ku qoran say ahayd tabooyin ama mataqaana tusaalooyin noloshiisa ay soo martay marka waxaan ugu mahadcelinayaa marka koowaad kelmadii quruxda badneed ee qiimaha badneed ee inoo soo jeediyey marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii iyo waayeelkii ka wada faa'iidaystay barnaamijka quruxda badan bilay ku dhawaasa 500 nagu xiran zoomka hadda iyo sidoo kale dhalinyarada nagala socota pageka facebooka dhammaantiin waxaan rajeynayaa cilmi badan faa'iideen waxaa jira kulan waxaa jira tartan aan ugu talagalnay in laga soo qoro waxyaabihii aad ka faa'iideen barnaamijkan tartankaana wuu jira inaad la socotaan waxaa la yidhaha tartanka qoraalka kulanka martida murtadoon qaabkiisa iyo habkiisana waad kala socon kartaa waxyaabihii aad ka faa'iiday ciwaankii cashirkii caawa ayaad ku soo qoraysaa kulankii ugu dambeeyana dadkii mataqaana wax ka soo qorayna way arkeen marka arrintaan waan tambiihi lahaa mar kale aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajeynayaa in ustaadka aan ku celiyo barnaamijkan aan soo gudnaado insha allah dhawaan aad iyo aad baa umahadsan tahay gudoomiye waxaan rajeynayaa in aad tartankaas ka qayb qaadan doontaan cashirka caawa halkan uu ku bixiyey ganacsada sheekh axmed cali jimcaalena aad dhammaantiin wax ka soo qori doontaan wixii aad ka fahanteen cashirkaas aad ka fahanteenna aad bulshada la wadaagi doontaan cilmigu intii aad taqaana haddaad gudbiso waa uu ku ziyaadaya waana waxa keliya ee ku ziyaada in la bixiyo ma rabo inaan hadalka dheereeyo waxaan rabaa in aan uu noo xiro barnaamijka sheekh axmed nuur cali jimcaale
fikraddiisa iyo talada oo siinaya naadiga akhriska qoraalka murtidoonna oo ku soo gabagabeeyo soo dhawow axmed cabdi jimcaale sheekh. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi waalihi wasalam. runtii waa dardaarankii waxaan iskala dardaarmaynaa dhammaanteen ilaahay subxaana watacaala inaan ka cabsano. walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqu llah. ilaahay cabsiisaan dhammaanteen iskala dardaarmaynaa. meeshaan waa meel daar camal mudeera la joogaa, waa la soconaa. marka ilaahay in laga baqo, dhalinyaro iyo in weyn intaba. waxa waaye dhalinyarada oo waxbarata waxaan ku waaninaa in mataqaanaa kitaabka ay boorka ka jaraan, boorka ka jafaan ayaan ku waaninaa. waxaan hadda isla aragnay adduunyo iyo aakhiraba inuu kitaabka ku jiro, ina hada alqur'aana yahdii lilati hiya aqwam. inay kitaabka boorka ka jafaan. soomaalida waa dad aad ahlulqur'aana. waxaa la yidhahdaa beledulmilyoon xaafid somaal waaye. marka qur'aankii waalidiintuna idin soo bareen waa la hilmaamay sida badan, ilaa man raxima rabbuka. hala soo cesho qur'aankii. jaamacadan galay ama gudaha jooga ama banaankan jooga, jaamacadan gale ku leeyahay yaa wiil iyo gabarba waa qur'aankeena sidii meesha looga tegey. marka qur'aanka hala soo cesho aad iyo aadaan uga dardaaranma arrintaas. wadamada aad joogtaan ka faa'iidaysta khibrad ahaan, ma aha academic keliya. wadamada aad joogtaan internship bilaash ku shaqeeya, ka faa'iidaysta mataqaanaa. ayaa arrintaas aydana in kala dardaarma. isku xirma oo dad isku xiran oo iskaashada noqda. kalsooni ay dhexdiina kasii abuuranto si aad berrito isula shaqaysan kartaan oo ay noqoto waddanka markaa ku noqotaan dad isla shaqaysan kara oo shirkad samaysan kara. nin arkaaba waxba ogyahay, daduu yaqaanaa. nin arkaaba wuxuu ku fiican yahay. marka haddaba isla sii barta oo dadka aad iyo aad ka faa'iidaysta inaad dad saa isula joogtaan, aad isbarataan oo tacaawushaan. waxaan rintoo kale aan sidoo kale ka dardaarmaa in laga fogaado arrimaha kala fogeyn kara, idin kala fogeyn kara dadka cilmi doonka ee jira. aad iyo aad way idin kala fogeyn karo dhan inaad aad uga dheeraataan. ay kamid tahay mataqaanaa waxyaalaha qabyaalada la yiraahdo, waxaan la yiraahdo mataqaanaa jamaacaadka. waxyaalahaas idin kala fogeyn karo dhan inaad ka dheeraataan aad iyo aad. sidoo kale indhihiina inaad ku haysaan fursadaha jira waddanka aad joogtaan, fursadaha ka jira indhihiina ku haya. u qiyaasa soomaaliya iyo wixii mataqaana ka jiray saas oo kaleeto. runtii naadigan waxaan bogaadinaa sida u sheegeen, annaga waxaan nahay ummad oo laa taktub walaa taqra, saasaan sida u sheegeen. waa aad iyo aadan ugu bogaadinaa shaqada ay qabteen, inay mataqaanaa qoraallo iyo intaba iyo hirgeliyaan iyo qaraa'adaba. aad iyo aadan ugu faraxsanahay, u bogaadinaa dhalinyarada bartan samaysay murtidoon, xigmadoon. aad iyo aadan iyagana u bogaadinaa. risqiga ilaahi subxana wataala isagaa bixiya. fabtaguu cinda allahi risqa wacbuduuhu washkuruu lahu ilayhi turjacuun. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم. aadi aad baa u mahadsantahay sheekh axmed cali jimcaale. barnaamijkanaga intaas ayaan kusoo xirinaynaa. dhammaanteen xubnaha naadiga akhriska ee qoraalka murtidoon iyo dhegeystayaashuba dhammaanteen waxaan kaaga mahad celinaynaa cilmiga iyo khibradda aadna siisay. ilaahi subxaana watacaala ha ku abaalmariyo. kullaytaba annagu waad mahadsan tahay ayaanu ku oranaynaa. ilaahi subxaana watacaala waxaan kuu soo weydiinaynaa inuu kitaabka maalinta qiyaamaha ku xisaabiyo oo cilmigaas aadna siisay iyo xikmaddaas aan raadinaynay inta badan aad noo suurtagelisay inaan caawa ku dhegaysano. in badan inaan ku dhegaysano ayaan jeclaa lahayn. insha allah haddii ilaah yiraahdo fursadaha insha allahu aan fursaddii aan ku heli karno inaan cilmi noogu sheegtaan insha allahu waan isku dayayna inaan soo raadsano. dadka gacmaha soo taagaya waxaan leenahay fursad ay waqtigii ayaa dhammaaday. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaa barnaamijka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kulanti dambe oo wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.